dhaqamada dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaa ka mid ah in haweeneyda uu ninku la guursado xaas kale uu siiyo masayrtir sidaasna ay ku qanacdo in la guursado halka kuwa kalena ay diidaan ilaa xaalku furiin isku bedelo masayrtirka si toos ah badanaa haweeneyda la siinayo ma dalbato balse ninkeeda ama odayaasha ehelka ninka ayaa marka ay arkaan in reerku soo kala dhexgalay khilaaf uu sabab u yahay guurka cusub ee ninka ayay gabadha u sheegaan in waxa ay rabto oo dhan loo sameynayo balse aysan dalban furiin waxa ay ku qancayso ee dooqeeda ah ayay sheegataa sida uu sheegay Maxamuud Xasan Axmed oo ah nin u gogol fariistay dhowr jeer khilaafaadka qoysaska ee hinaasaha la xiriira way jirtaa nin la xisaabtanto xaaskiisu iyo marwadiisu ay la xisaabtanto oo ay tiraahdo maaragtay maadaama aad nin gudbay oo guursaday aad tahay waxaad rabto guurso laakiin anigu waxaan xaq u leeyahay inaad masayrtir isiisid haddii aad masayrtir isiisidna waa kugu qancaa haddii aad masayrtir isiina dee nabad allah ku yeelo waa nin kaligiis tashaday aad tahay qaab ahaan labada qofood saas u heshiisaa ninku saas maaragtay masayrtirka gabadha way uga qaadataa iyadoon cid ogsoon iyo maaragtay muran iyo dhib uusan imaan mid haddaan alla kuu diidin tagto xanaaqdo reerkeedii u tagta way jirtaayo reerkii ay kasoo jeeday aada dabadeetana reerkii wiilku kasoo jeeday ay soo dabagalaan soo raadiyeen gabadha sida dhaqanka Soomaaliyeed uu yahay labada garab ay isu soo gogol galaan ay ka wada hadlaan oo sida badan ay sheegaan qaabka aan reerka lagu xallin karay waxa u daawada waxyaabo badan waxa jira maaragtay gabadha loo maaragtay waxay sheegato waxna la yiraahdo gabadha maaragtay faataxada mandhay waa kaaga marayna wiilkana la yiraahdo waxaas u qabo gabadha oo maaragtay reerka saas ku noolaado Cabdiraxmaan Axmed Cabdi oo degan degmada Gurceel gobolka Galgaduud 2 bil ka hor ayuu guursaday xaaskiisa labaad wuxuuna siiyay xaaskii hore masayrtir dhan $500 iyo alaabta guriga taalay oo la bedelay maadaama uusan u sheegin markii uu mehersanayay awridiisa cusub waxa ay ku qaadatay muddo isbuuc ah inuu ku qanciyo masayrtir xaaskiisii hore inaan halkeedii galo oo gabadhii ay masayrtir iyo wax aan hataa ku maslaxayo kadib wax badan iga diiday wax badan aan ku qalqaaliyo aakhirkii dambe waa ogolaatay inay masayrtirka iga qaadato masayrtirka waxaan ku sii waa ka qariib markaa hore ma sheegin markaan gabadhii isku xiri ka bacdi oo ay maqashay dabadeed markaasaan maslaxad uga dhigay oo aan meherka maasha Allah waa ku nagaadeen xaalad sidii hore ka soo laabatay reerkii dambana waan dhisay kii horena sidii ku noqday masayrtirku miyiga iyo magaaladaba waa laga isticmaalaa oo marka miyiga la joogo haweeneyda la guursado waxa la siiyaa xoolo sida geel ari ama lo sida uu sheegay Maxamuud Qadaro Maxamed Cabdullaahi oo 6 caruur haysata 3 bil ka hor ayuu ninkeedu siiyay masayrtir markii uu la guursaday xaas kale Qadaro oo degan Gurceel ayaa erga u sheegtay inay isbarbar dhigtay in gurigeeda ay dumiso iyo inay masayrtir qaadato ugu dambeyntiina waxay qaadatay masayrtir dhan 10 gram oo dahab ah iyo jeefka oo laga bedelay waxay ku timid waa guursaday waxa guursaday odaygayga guursaday marka hada guurka ma celi karo guur waa afar naagooda Ilaahay u baneeyay waa guursaday waxaan door biday maadaama aan isbarbar dhigay inaan nolosheedii baabi'iyo iyo inaan masayrtir haduu ogolaan ka qaato inaan masayrtirka ka qaato maya waa la iga qasbaday kuma aan soo dhaweyn laakiin maadaama ay dhacday inaan ka qaato dooraan waa door biday oo maadaama oo irmaanay waan ka qaatay masayrtirkii oo markaas oo waxa kala hay way maxay noqotay marka masayrtirka muxuu noqday qatray waxay noqotay waxyaalo badan oo aniga kulay aan ku qancay dahab la ii gaday gurigii baa la iga bedelay waxyaalo badan aan jirjiray Maxamuud Xasan Axmed waxa uu ergo u sheegay in mararka qaar ay dhacdo nin ay odayaashu ku amreen in uu xaaskiisa masayrtir siiyo uu ka dhaga adeego sidaasna uu reerku ku burburo mararka qaarna nin aan awoodin in xaaskiisu ay hanti badan weydiisato inta gabdhuhu ay maaragtay ay kala yihiin oo kale ayaa raggu kala yahay nin dhahaya masayrtirkaada ma aqaan haddii aan la ku diidin reerka hadday islaantu dhaqaynaa dhaqato haddii se dhaqaynaa anigu hawshaas masayrtir iyo wax ma bixinayo nin aan ba awoodin haddaan la ku diidin maadaama uu awoodi waayo laakiin jecel inuu maaragtay reerkiisa uu ka baxsado hadba inta maaragtay dabeecadu si u kala duwan yihiin oo maaragtay arrinkaas masayrtirka bixintiisuna u kala duwan dad badan oo aan arah weydiinay intii aan sheekadan diyaarinaynay ayaa aaminsan in masayrtirku uu badbaado u noqday dhismaha qoysas badan oo Soomaaliyeed